سفارة Somaliland ee ku taala wadanka Djibouti ayaa waxa soo booqday 3 wasiir oo kala ah wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland, wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Markii ay soo gaareen xafiiska safaaradda ayaa waxa safaaradda ku soo dhaweeyay safiirka Somaliland u fadhiya wadanka Djibouti Ambassador Abdifataax Saciid Axmed. sidoo kale waxa soo dhaweyntaasi qayb ka ahaa safiirka xigeenka safaaradda Somaliland, waxaana guud ahaan safaaradda ku soo dhaweeyay shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala safaaradda Somaliland ay ku leedahay wadanka Djibouti. wafdiga 3 wasiirra ee uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Ciise Maxamuud Kayd ayaa soo indheeyay qaybaha ay ka kooban tahay safaaradda Somaliland ay ku leedahay wadanka Djibouti. waxaana ay wasiiradu halkaasi qoraal ku saxeexeen buugga soo booqashada wafdiga yimaada safaaradda Somaliland ee Djibouti iyaga oo magacooda iyo saxeexooda ku sameeyay buuggaasi yaala safaaradda Somaliland. waxaana buuggani uu yahay xeerarka u yaala marka safaaradda Somaliland la soo booqanayo in uu saxeexo qofka mas'uulka ah ee soo booqday markaasi safaaradda Somaliland ee ku taala wadanka Djibouti. markii kulankaasi booqashada ah ee wafdiga wasiiradii ku yimaadeen safaaradda Somaliland ee wadanka Djibouti uu soo dhamaaday ayaa waxa saxaafadda kala duwan la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Ciise Maxamuud Kayd. safaaradda Somaliland ay ku leedahay Djibouti oo imika joognay dalkan Djibouti muddo 6 cisho ah aanu ka soo qaybnay munaasabadii cultural-ka ahayd kadibna aanu dalka soo booqanay meelihiisa galgaarka. waxa si gaar ah ammaan u leh safaaradda Somaliland ee Djibouti waxyaabaha ay dalka ka qabatay sida u muuqata xafiisyadaanu galnay oo aanu soo wada eegnay say u habaysan yihiin, say shaqada qaranka u qabanayaan, si ay xilkooda u gudanayaan safaaradda Somaliland ee Djibouti iyo Ambassador Abdifataax. waxaan u jeedinayaa ammaan aad iyo aad u fara badan isaga iyo shaqaalihiisaba. waxa uu ka shaqeeyaa xiriirka labada dan ee walaalaha ah ee Djibouti iyo Somaliland isagoo marnaba ka daalin, mar walba diyaar u ah. 12 habeenimo ayaa isaga iyo shaqaalihiisu ay noo joogeen. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan filayaa in ay tahay runtii kaalintii diblomaasiya loo baahnayd inuu hayo. aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.